dadyo badan jahwareerka ugu weyni waxa uu ka haystaa sidii ay u dejin lahaayeen ahdaaf maangal ah macquulna ay tahay in la gaadho sidoo kale caqabadda ugu weyn ee haysata dhalinyaro kale waxaa ka mid ah inaanay lahayn xirfadii dejinta hadafyada waxaynu dul istaagi doonaa in ka hadli doonaa casharkaynu ka baranayno buugga la yidhaahdo goals ama ahdaaf ama hadafyo ama yoolal oo qoray qoraaga Brian Tracy oo ka mid ah qoraayada ugu saameynta badan leh waddanka Mareykanka qoraagani waxa buuggan soo saaray 2003 waana buug ka mid ah buugta lagu iibka badan yahay marka la eego buugagtiisa sidoo kale waxa ku jira inuu ka baran doonaa bal 7 qodob oo aad muhiim u ah marka qofku doonayo inuu dejisto hadaf uu leeyahay qodobka koobaad waxa uu leeyahay waa inuu qofku lahaadaa doonitaan dhab ah kaas oo u sahlay inuu gaadho hadafkiisaas yani qofku markuu hadaf leeyahay ee uu hadafkii waxa weeyaan niyadda ku qabto si uu u gaadho talaabada goor ay soo qaadaya waa in uu jira doonitaankii yani way doonitaan hadaan u jirin way adkaanaysaa inaad talaabo qaado doonitaankuna waxa keensanaya in uu shidaaliyo dhiiranaantaada dabadana ka riixo oo ku sahlo in aad noqoto qof gaari karaya hawshaas oo qaban karaya yani diyaar u ah maskax ahaan iyo jir ahaanba inuu hawsha qabto qodobka labaad waxa uu leeyahay waa inuu qofku aaminaa inuu waxa weeyaan gaari karayo hadafkiisa qofku haddaan aaminsanayn hadafkan uu dhigtay inuu gaari karayo aad bay u adkaanaysaa sababtu maxay tahay mar horeba aad noqonaya yani qof cul hortiijay yani talaabo aadan qaadin ayaad isdhiibaysaa sababtu ugu weyn maxay tahay adigaan is aaminsanayn is-aaminaadu ama qofku inuu aamino sheegan inuu ku guuleysanayo waxay qayb weyn ka qaadataa hanaan socodka qabashada iyo awoodda uu gelinayo qofkaasi hadafka uu doonayo inuu ka gaadho qodobka saddexaad waxa uu leeyahay waa in uu qofku dejistaa waqti kama dambaysa yani waa inuu yidhaahdaa waqtiga noocaasa waa in hawsha noocaasa aan gaadha si uu maskaxda ugu diyaariyo laba xaaladoodba xaaladii waa inuu ku talagalo yani oo qiyaasan karayo hawshaas waqtiguu dhammayn lahaa waayo hadduu wixii yahay wax waxaweyaan aan lahayn dhammaad qofkuu daalaya waana niyadjabaya lakiin qofku markuu garanaya dhammaadka yani waqtiga ugu talagalay waxa uu ku dadaalaya juhdi kasta yani dhiirigelin bay noqonaysaa in waxaweyaan uu waqtiga ku xisaabtamo lakiin hadduu wixii yahay waxaan waqti lahayn waxay noqonaysaa wax aanay macquul ahayn la gaadho qofkii ka niyadjabayo si fudud uga niyadjabayo qodobka labaad inuu qofku deadline dejisto ama qofku dejisto waqti kama dambaysa waxa weeyaan wuxuu diyaarsanaya dhammaan wixii u baahnaa si oo hawshaas waqtiga lagu talagalay mucaayinka ee uu cayntay amba waxay u astaysay uu gaadho qodobka afraad waxa uu leeyahay waa inuu qofku uu marka hore si fiican u baaro caqabadaha kaga iman karaya yani dhammaan yani talaabo kasta hadaf kasta iyo horumar kasta qofka bini'aadamka doonaya inuu gaadho caqabadiisu leeyahay taasi waa hubaad marka waa inaad ka sii fikri kartaa ama aad baari kartaa si xaqiiqa u baari kartaa tusaale kale dad ganacsi bilaabayso waa inaad yani si fiican u baari kartaa caqabadaha ka hor yimid dadka hore ganacsigaaga kala bilaabay yani si fiican uga warqabi kartaa waytan waxay ku sahli doontaa inaad mid kasta ka gaashaamato yani kuwa inta dariiqi ku jirta yimaada xalun baad u raadin doontaa laakiin inaad marka hore laftigooda caqabadaha iman kara waaweyn halista ku ah waxa weeyaan hawsha aad bilaabayso hadafkaagaas ku gaarka ah waa in aad ka taxadartaa taasoo ku sahli doonta markaad baadho shaygii inaad hesho waxa weeyaan xalkiina maxay Soomaalidu tiraahdaa xog la heliyaa xal leh marka si aad xalka ugu hesho waa inaad baadhaa qodobka shanaad wuxuu leeyahay waa inaad qortaa ahdaaftaada waayo hadafku markuu qoran yahay markaan qornay kala duwan yahay markuu qoran yahay wax lagu xisaabtami karo markaan qornayn waa wax fudud tahay in la iloobo qofku waxa la radaa maskaxdiisu ama conscious mind-kiisa qaybtan waxa weeye memory-gu waxay haysaa oo information kan xogta kaydisaa waxaan ka badnayn 5 daqiiqadood taasi maxay keensanaysaa maalin walba waxaad aragtaa in hawl aad si fiican u qorshaysay oo qorin aad ilowdo wasiiro fudaad u lugdaanba sidii si aan ahayn aad u dhigtay hadhowtoole marka waa inay ku qornaadaan qoraalka aad samaynaysa laftigiisana hal suru aad u weyn baa ku jirta markaad qoraysid waa inaad tiraahdaa waqtiga noocaasa waxaan haystaa lacag intaa leg waqtiga noocaasa waxaan gaadhay hadafka noocaasa yani tan macnaheedu waxa weeyaan waa inaad qorto xaalad present yani xaalad taagan waa inaad qori kartaa waayo maskaxdu subconscious mind-ku waxa uu aqbalaa wixii present yani haddaad tiraahdo waxaan rajaynaa waxa aan qabto waxaan rajaynaa halkaa gaadho macquul ma noqonayso laakiin waa inaad tiraahdaa waqtiga noocaasa waxaan haystaa waxa yani waa inaad ka dhigtaa jumladaad qoraysid ama statementska personalkeed qoraysid waa inaad ka dhigtaa wax present waayo maskaxda subconscious mind-ka يعني قيبته دقنده إنه كيما داني لو بهين إني كشو حكتني أنا بهدف كأنه قالوا
ayaa ku aqbashaa waxay aqbalayso qaab present yani qaab waqti xaadira oo yani waqtigan taagana sidoo kale waa inuu hadaa waxaad wax ka qoraysaa hadafkaaga markaad qorayso waa inaanu shaki ku jirin yani waa in ilaahay subxaana watacaala ay la kaashataa oo aad niyadda wanaagsan ilaahay khayr ka filataa sidoo kalena aad waxaad qorayso uu ahaada mid yani wanaagsan yani hadaf wanaagsan qaabkaad u qorayso haddaad laakiin ka shakisan tahay oo shaki jiro way adkaanaysaa shayga inaad dabaysaa qodobka waxa weeyaan lixaad waxayna leeyahay waa in aad marka hore intaanad hawsha bilaabin aad analyze garaysaa oo dhinacyo kala duwan ka eegtaa si ay kugu sahlanaato inaad xog dheeraada aad hesho qodobka ugu dambeeya waxayna leeyahay waa inaad raadsataa wixii xirfado dheeraad u baahan tahay haddaad u baahan tahay hadafkaaga si aad u gaadho xirfado kale oo dheeraada waa inaad xirfadaha doonataa si aad u kororsato aqoontaad u baahan tahay toddobadan qodob waa toddoba qodob aad muhiim u ah qof kasta oo doonaya inuu hadaf dejisto waxaana ku qoran tahay oon si kooban uga soo qaaday buugga la yidhaahdo goals si aad iila socotid maalin kasta waxaan soo gelinayaa buug ka warhay oo ku xidhnow instagramkayga tiktokayga iyo youtube-kaygaba waxaad ka heli doontaa xog ku anfacda maalin kastana waxaad heli doontaa hal buug oon si kooban uga soo qaadanay casharadaynu ku baran karayno halka talanayso siinayna waxa weeyaan ahdaaftaada iyo waxa weeyaan yoolalkaad leedahay cidna ha u sheegin afkaaga hayso waayo dadka qaarkood waxa problem ku ah ahdaaftii sheegayaan يعني هداد شيكتنا مركز هدف كأجا شيكتو مسكح ذي حكون شيء ساينة طواتي وأنا تكين سنة إن تصير فضل دقني جبت لكن مركز ذي هيستو وواحد كجوبية إلا تكون قاري سنة وحويان درين كاسبوك وشريه لكن هداد شيكتو لبردي نعبها الأسبوع هاي دينا إشي يو حويان عيد كستاكم وقولكم مفرح سنة هدف كان يو قول كان يو حويان قروح دني ونا كنا دونيس تكون مفرح سنة عيد كستا أنا يعني حبيبكم معها دنك المركز اللي جاي أنا مسكحذو وحيدو ودياريسا شيء على شيء إنه يهي شيء لقبته وكله أي كريكتا ها أديكوا كتحدرية وإن الأفكار هيستها هدف كأجنا أتيو قبضتها يعني ها أمس نكوشرتو عدة ضوء بعهتو وحي عاونا ودي الشيء كرتا أما قفكو جارة ودي الشيء كرتا لكن هذا كوضع شيء توضح بابليك كريكتو هل استيسوا ليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته